waxay ku qasbaan ku sheegaya dalkayna lagu dhibaan waalidkii dilaan dad muslimo meel joogay biraynaan anni markaas dhiigay u kacay ayaga ku soo biray waana dilinaa dalkan ka horeynaa wabillahi tawfiiq da'diisu waa 12 sano jir waxa uu qoriga aakaha u garaarsaday sidii uu ciribtiri lahaa kooxda arxanka daran ee khawaarijta argagixisada al-shabaab waxayna dileen hooyadiis godkan ayay ku dileen deegaanka Tardo ee isla gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya waxa uu ka sheekeynayaa dhacdooyin argagax iyo xanuun leh maadaama kooxdani arxanka daran ay ku hordileen hooyadii dhashay xogtaas oo dhameystiran ayaan rabaa daawada inaan halkan kula wadaago marka hore waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka inoo share gareysaan si uu meel fog u gaaro haddii ay tahay markii kugu horeysay ee soo booqato YouTube-ka Haldoorna inaad subscribe tiraadid gambaleelkana furatid si mar walba aad ugula socotid dhacdooyinka yaab kale ee ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya aan ku bilaabay wiilkani waxa uu ku nool yahay deegaanka Tardo ee gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya waxay kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab ay ku hordileen hooyadii dhashay wiilkan waxayna taasi ku noqotay mid urku taala ah maadaama kooxda arxanka daran ee khawaarijta argagixisada al-shabaab ay ku hordileen hooyadii dhashay waa kan wiilka yar oo ka sheekeynaya dhacdooyinka xanuunka iyo argagaxa leh oo kala kulmay kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab isagoona da'da 12 sano jira ka qayb qaatay dagaalo badan oo lagu xoreeyay deegaanka Tardo iyo deegaano hoos yimaada Bishaaro adigoo saan u daayar maxaa kugu qasbay inaad al-shabaab la dagaalanto waxay ku qasbaan ku sheegaya dalkayna lagu dhibaan waalidkii dilaan dad muslimo meel joogay biraynaan anni markaas dhiigay u kacay ayaga ku soo biray waana dilinaa dalkan ka horeynaa wabillahi tawfiiq shabaabo hadda koor waa isku dhacna naga waana ka raynay afar iyo ibra ku soo kala tagnay banooniga adiga soo badinay waa adiga koox badnaynay isla kooxaan haynin laakiin waa adiga badinaa jawaab laga qalay marka annaguna adaa laga qalay waysiin wallahi waa leediga hadaafina soo dhawaada daawadayaal waxaan maanta la joognaa Bishaar oo ah wiil 12 sano jir ah isla markaana kamid ah ciidamada dib u xoreynta ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab Bishaar waxa uu ku dhashay deegaanka Tardo waxa uu halkaas uga biiray halganka lagu la dagaalamay al-shabaab isagoona aad u daayar waa kan hadda garabkayga ayuu taagan yahay isagoo qorogiisa wato waxaan su'aalo kooban ka weydiin doonaa taariikh nololeedkiisa iyo sidoo kale halka uu halganka uga soo biiray iyo ujeedada ugu horeyn soo dhawow Bishaar magacaaga saddexan iyo halka ku dhalatay balnalowda anaga waxaan jiraa 12 sano waxaana ku dhashay Tardo deegaanka Tardo ku dhashay waxaana ku soo barbaaray inteed uga beertay halganka aad al-shabaab kula dagaalamaysa waxaan naga soo beeray Tardo iyo ceel hariiri iyo Moorari bal ka war wali dagaal al-shabaab ee ciidamada deegaanka la galeen qayb ma ka waa ku jira dhowr mar ku jiray intuu ka dhacay dagaalkaas wuxuu ka dhacay Aboori iyo Tardo iyo ceel hariiri saddexda ku jiray adiga oo daayar yaa qoroga ku sii yaanu ku dhiirigeliyay inaad ku beertay ciidamada dib u xoreynta nin shabaab oo la dilay qorogan ka soo qaatay waana haastaa waana laga xoreyna dalka Soomaaliya maxaa al-shabaab gabay ama geeraar ah oo adigu tala gashay la dagaalanko waxaan iri xawee quraamka la dhiga xawaal xuula kama yeerto mujaahidiintan malabka waaweyn sidii geel waxara daaqay ilkaha waaweyn feeraha weyna sidii orgi dhaadoolo iri xawaal la soo aaday ayay annagana dalkayna lagu dhibahayaane gibigoodina gees laga maro oo gibigood la dilo oo dalka laga xureeyo oo gibigood bahal xab laga riibin diyaar muunan waxaan kalmida kale waxay ahayd gedisley gargaar male gaalana islaan male goda qira gadoon male garoob guda fiyow male waa rune gedisley gargaar mabale gaalana islaan mabale god aqrina gadoon mabale ma gedisley gargaar oo gaalo islaan oo god aqrina gadoon oo garoob ma guda fiyow
hore loo soo dilay. Bishaaro adigoo saan u daayar maxaa kugu qasbay inaad al-shabaab la dagaalanto? waxay ku qasbaan ku sheegaya dalkayna lagu dhibaan waalidkii dilaan dad muslimo meel joogay biraynaan anni markaas dhiigay u kacay ayaga ku soo biray waana dilinaa dalkan la ka horeynaa wabillahi tawfiiq. maxaa kaaga qorshaysan la dagaalanka al-shabaab? oo qalbigeeda ku jira inaad dilno oo gibigoodba hal xaba laga riibin oo ilaa bartii joogaan saas looga dilaa. waani saasaan niyadeyda ku jirto haddii toog la soo aadaanayna nafta ka bixino ruuxa ka bixino oo weliba gaaladu dhashay gibigood dilno. ugu dambeyn maxaa fariin oo u diraysa al-shabaab? shabaabow hadda koor waa isku dhacna annaga waana kaa raaynay 4 iyo ibra ku soo kala tagnay banooniga waa idiga soo badinay waa idiga koox badnaynay isla kooxaan haynin laakiin waa idiga badinay. jawaab laga qalay marka annaguna adaa laga qalay waysiin wallahi waa leediga hadaafina waxaan idigu daraayaa dawaa quraamko la dhigadaa lagu dadaalay dabdabley dhamaan doodkii kala gacay gacantay waa gaaray guul galkeeda iyo gacantay goolkeeda galshagaaligayga kuroon bidowna baabkiisa barsha baaligay kula fanaa laguma soo foorsho firya farawax oo lahay laguma soo foorsho adiguna fanaanaataho laguma qaban karo bishaaraba. guud ahaan waxaan intaas kusoo afmeeraynaa saaxiibayaal waraysigii gaarka ahaa ee aan la yeelanay abwaan mujaahid bishaar oo ka mid ah ciidamada deegaanka. maxamed ibraahim axmed telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable deegaanka Tardo. bishaaro adigoo saan u daayar maxaa kugu qasbay inaad al-shabaab la dagaalanto? waxay ku qasbaan ku sheegaya dalkayna lagu dhibaan waalidkii dilaan dad muslimo meel joogay biraynaan anni markaas dhiigay u kacay ayaga ku soo biray waana dilinaa dalkan la ka horeynaa wabillahi tawfiiq. shabaabow hadda koor waa isku dhacna annaga waana kaa raaynay 4 iyo ibra ku soo kala tagnay banooniga waa idiga soo badinay waa idiga koox badnaynay isla kooxaan haynin laakiin waa idiga badinay. jawaab laga qalay marka annaguna adaa laga qalay waysiin wallahi waa leediga hadaafina. soo dhawaada daawadayaal waxaan maanta la joognaa Bishaar oo ah wiil 12 sano jir ah isla markaana ka mid ah ciidamada dib u xoreynta ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab. Bishaar waxa uu ku dhashay deegaanka Tardo waxa uu halkaas uga biiray halganka lagula dagaalamay al-shabaab isagoona aad u daayar. waa kan hadda garabkayga ayuu taagan yahay isagoo qorogiisa wato waxaan su'aalo kooban ka weydiin doonaa taariikh nololeedkiisa iyo sidoo kale halka uu halganka uga soo biiray iyo ujeedada. ugu horeyn soo dhawow Bishaar magacaaga saddexan iyo halka ku dhalatay ballalowda. anaga waxaan jiraa 12 sano waxaana ku dhashay Tardo deegaanka Tardo ku dhashay waxaana ku soo barbaaray. inteed uga beertay halganka aad al-shabaab kula dagaalamaysa? waxaan naga soo beeray Tardo iyo ceel hariiri iyo